بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan maanta waa maalmihii waaweynaa oo Soomaaliya taariikhda ay sameynaysa ka mid ah markii labaad ayaa dad Soomaaliyeed waxay u dhaqaaqeen maanta doorasho qof iyo cod ah iyo inay cabiraan ra'yigooda iyo cidda ay u rabaan inay hoggaanka noqoto waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyeynaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo aan leeyahay hambalyo taariikh cusub iyo bog cusub ayaad Soomaaliya u furteen 13 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedkaas ayaa saaka dadku waxay u dhaqaaqeen inay codkooda dhiibtaan oo ay codkooda u dhiibtaan dowladaha hoose iyo kawnsalada degmooyinka iyo wakiilada dowlad goboleedka intaba waxaa ilaahay mahadi ah saacadda aan idila hadlayo oo maalintii ay gabagaba joogto in wax dhibaataa iyo wax culays iyo wax incident ama dhib oo dhacay aanay jirin dadkuna ilaa saaka ay safaf dhaadheer u taagan yihiin in ay codkooda dhiibtaan anay dhiibteen waa yeelo maxaan ku raadayay dad baahiyaha gaarkaa qabo dhalinyaro dhammaan in ay taagan yihiin oo ay codkoodii la baxayaan oo ay maxaan ku yiraahdaa muujinayaan cidda ay rabaan iyo mustaqbalkooda inay go'aamiso ay rabaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed arrintaas waa misaal waa kudaysi mudan in la dabagalo sidaas ayaa dadka Soomaaliyeed dhabta waxa ay rabaan dadka Soomaaliyeed taasaa ka turjumayso ma ka turjumayso nin kaligiis meel taagan oo asagu sidiis u taagan waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka soo shaqaysay tusaalaheedii waa ka inta kala dalkana inay sidaa u dhamaystirtaan rabno ana dadkeena u sheego dad badan oo aan anagu jeclaan lahayn inay ku soo baxaan codadka ayaa codadkii hore oo horudhac ahay oo la sameeyay ku soo bixi waaya haddana cod weyn doon waxaa soo bixi doon kuwa la diidanay shalana eedeynayay na dacaydeynayay ayaa cod dadka inta ka soo helaa soo bixi doon dimuqraadiyadana waa intaas anaa hebelaa jecel iyo hebelaan jecelahay midna ma ahan waa ninka dadku ay danaynayaan ee fikirkiisa saxda ee siyaasiga dadka ka iibiyey kaas unbaa soo baxaya ee sooma baxayo midka maxaan ku yidhahdaa ee bannaanka ka qayliya ama meelaha maxaan ku yidhahdaa ka qaylo dhaami waxaan si buuxdo mar kale iyo mar kale u bogaadinayaa u hambalyaynayaa maxaan ku yidhahdaa dadka koonfur galbeed ee saakay u dhaqaaqa codbixinta waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa hay-adaha amniga ee hari iyo habeen u taagan